Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qaaliga meel walbo dunida ka joogtaan waxaa idinku salaamay salaamta islaamka ummadayda Soomaaliyeed. Salaan kadib sida arkaysaanba waxaan sameeyay rooti aad u macaan badan oo aadna u qurux badan maasha Allah oo aad ka heli doontaan. Rootigaas waxaa ka dhigan kartaa casriye, waxaa ka dhigan kartaa quraac, waxaa ka dhigan kartaa casho ayaa ugu dhigi kartaa ciyaalka iyo guriga oo dhanba. Masha Allah macaankan waadna ka heli doontaan. Waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago wixii ka sameeyay haddana waa kana ila daawada. Sida arkaysaa meesha waxaa ku haystaa baaquli iyo bakeeri. Waxaan isticmaalayaa 2 koob oo caano ah, caano yar qandac oo aad u qaboobeen. Waxaan ku dari doonaa khamiir. Khamiirkaasna waxaan isticmaalayaa qaando iyo haaf khamiir ah insha Allah. Sida arkaysaanba qaando iyo haaf khamiir ayaan ku daray. Waa kaas wax yar ayaan ku jajafay wixii ku haray. Waxaan ku daray bakeeri haafkiisa oo sokor ah. Sida arkaysaanba haddana waxaan ku darayaa wax yar xabad ukun ah iyo qaybta kale oo cad ayaan ku daray. Wax yar oo cusbo ayaan ku daray. Waxaan ku darayaa qal ayaan ku darayaa 1 qaando oo qal ah. Haddana si fiican ayaan u walaaqayaa. Sida arkaysaanba ukunta waxay ahayd 2 xabo, qaybta guduudka ayaa meel dhigtay, qaybta kaleeto iyo xabada kaleeto ayaan ku daray sida u jeedeenba. Sidaas ayaan walaaqayaa si fiican markii aan isku dhaxgaliyay kadibna waxa meesha igu diyaarsanay buskudka inaan idin tusaarabay noocaas ayuu ahaa. Buskudka waan soo shiiday sidaas ayaan ka dhigay oo budada ah. Kadibna waa kaasa buskudkaas ayaan ku darayaa. Waa u isticmaalayaa buskudkaas ayaan sidaas u walaaqayaa. Markii aan walaaqo kadib oo soo dhameeyo ayaa arki doontaan insha Allah. Markii aan sidaas u walaaqo waxa arkaysaan wax yar oo burbur ayaa haray. Burburkaas ayaan ka bixinayaa. Markii aan shiiday si fiican u shiidmin. Marka waa kaas burburka markii aan ka bixiyay haddana waxaan isticmaali doonaa burkii ayaan ku dari doonaa intii qiyaasta ay noqoto. Adigana waxaan isticmaali doonaa koobkan hadda burka aan ku soo darsan doono ilaa iyo 4tiisa ayaan isticmaali doonaa hadduu ilaa yiraahdo. Waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan asxaabteyda qaaliga ah meel dunida ka joogtaan. Waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Kun iyo kow jeer waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe ka saartaan, inaad share gareysaan idinkoo mahadsan. Like haddii aad ka heshaan videoga aan soo sameeyay. Commentigina waa xagiina insha Allah. Idinka ayaan idinka sugeynaa inaad dhiirigelintiina iyo wixii markaas fariin aad nooyisiin hoos noogu reebtaan. Sida arkaysaanba burkii waa kaasa qayb mar ayaan ku darayaa si inuu hal mar adkaadana marabi. Qayb mar ayaan ku darayaa. Haddana waxaan ku daray subag. Subagaas cad ayaan soo isticmaalay. Waa arkaysaan sidaas ayaan ugu jajabinayaa. Haddii ay haysatid subag waa isticmaali kartaa. Haddii ay haysatid saliid waa isticmaali kartaa. Buskudkana qasab ma halkaas nooc inta isticmaashid. Haddii rabina buskud ma isticmaali kartid. Nooca aad rabtid buskudka ayaa isticmaali kartaa. Waana kaasa ani noocaas ayaan isticmaalay. Rootigan oo shukulaatada dhexdeeda laga gelinayo ama macaankan sida arkaysaanba qofkii rabana wuu gashay oo ku darsan karaa buskudka, qofkii kalena wuu iska dhaafi karaa. Marka waa kaasa sida arkaysaan sidaas ayaan burka marba qayb ugu soo darayaa ilaa aan ka dareemo gacanteeda sidii aan ka rabay inuu noqdo. Masha Allah tabarakallah. Sidaas ayaan u qasaysaa. Xoogaa wuxuu u baahan yahay inaa xoogaa fiican aad qastid si uu isku dhaxgalo soft uu noqdo oo u qurux badnaado hadhow insha Allah. Marka waa kaasa qofkii makiinad haystaan makiinad ayuu isticmaali karaa. Qasab ma aha inuu gacanta u isticmaalo. Laakiin aniga waxaan jeclaystay inaan gacanta u isticmaalo. Markaas waxaan ahay faaruq waa sameyn karay. Marka waa kaas asxaabteyda qaaliga intaas ayaan idin la jeclaystay macaankan quruxda badan inaan idin la wadaago. Waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha Allah. Anaga waa ka helnay idinkan waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan. Waa kaas sida arkaysaanba sidaas ayaan walaaqayaa marba qayb ayaan
ku daraya burka. Hadda waa diyaar sidaan dareemayo. Bur kale uma baano, intaan ka badan haddii aan burka kusii darana aad ayuu adkaan doonaa. Sidii runta ahayd rootiga caadiga oo kaleeto uma adko, laakiin wuu ka yara sii jilicsan yahay, wuuna soft saaid waaye. markii aad cunaysid waxaad dareemaysaa dulsho miyaa buskud miyaa xoogaa yar waxaas leedahay. marka waa kaas asxaabteyda qaaliga, intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago wixii aniga aan ka helanay. waxaan jeclaa inaan idinkaaga faa'iideeyo. waa kaasa, waadna ku mahadsantihiin daawashadiina, sidaa noo soo dhiirigelinaysiin mar walbana waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe-ka iyo share-ka, like-ga, commentiga aad igu caawisaan. waadna mahadsantihiin. sida arkaysaanba waa kaasa, waa soo dhameeyay, waa okay, wax u dhiman male, perfect waaye. hadda waxaan ku isticmaali doonaa weli waxaan sameynayaa gacanteyda oo tijaabo ayaan wadaa. haddana waxaan sameyn doonaa, waxaan ku shubayaa wax yar oo saliid ah si oo hadhow kaleeto waxaan ku daray wax yar oo bur ah, burkii wax yarkaan ku daray waa intii ugu dambeysay. hadda aan ku daray mar kale, bur kale kuma daraayo. waxaan dareemay gacanta xoogaa inuu qabsanayo, laakiin waa okay. inuu jilicsan yahay lama rabo, inuu ka adkaadana lama rabo. marka hadda waxaan ku darayaa wax yar oo saliid ah. saliidaas ayaan korka marmarinayaa. markii aan saliida korka marmariyo si oo hadhow bacda aan ku daboolo uusan u qabsanin ayaan saliida u marmarinayaa. waxba saliid saas uma baahno, subag ayaan ku daray, laakiin waxaan u marinayaa waxay tahay markaas saliida waxaan u marinayaa waxay tahay in uusan hadhow kale bacda uusan qabsan, bacda aan ku dabooli doono. sidaas darteed ayaan saliida u mariyay. haddana waa kaasa, saliida waa mariyay sida arkayseenba. haddana waxaan saarayaa daboolka, ama waxaan ku dabooli rabaa bacdi ayaan saarayaa. kadibna waxaan gelinayaa foornada, qaybta aan ku dubi doono ayaan geli doonaa. waxaan u shidayaa nalka, kadibna waan gelinayaa si uu ciyow iyo qamiiro, maadaama hadda qabow tahay uusan ciyow soo qamiireynin, wax qoraxna aysan jirin. meeshaas ayaan gelinayaa. xoogaa markuu soo dhaho uu qamiiray kadib ayaan soo bixi doonaa insha Allah. waadna arki doontaan markii aan meesha kasoo bixiyo sida uu qamiiro iyo sida uu noqdo insha Allah. sida arkaysaanba waa kana markii uu qamiiray aan soo bixiyay. saas aad ku quruxda badan uu noqday. maxaan lahaayay maasha Allah tabaarakallah. bacdina ma qabsan sida hore idin sheegayba. meeshan waxaa kusoo diyaarsaday plastic ayaan rabaa aan ku fidiyo. waa kaasa, sidaas ayaan ugu fujinayaa. haddana meesha ayaan ku shubaa. meesha markaan ku shubo kadibna waan gogoynaa, waa soo kuuskuusayaa. markii aan ku kuuso kadib gacanteyda saliid waxaan umarsanayaa inuusan igu dhegdhegin. xoogaa yar waa uu kugu dhagayaa haddii kaleeto. waa kaasa, meesha markaan ku shubo waan kuukuusaa. markii aan kuukuuso isla ekeeyo, qaybta dhexdana mid ayaan u diyaarsanayaa oo qayb mid xoogaa yar kuuskuuska ka weyn ah. insha Allah markaasna waa arki doontaan sidii uu noqdo hadduu Ilaahay yiraahdo. haddana waa kana anigoo kuuskuusaayo, waa arkaysaan insha Allah. waa soo dhameynayaa. markii aan soo dhameeyana waa arki doontaan insha Allah. nala sii socda, daawasho wacan oo wanaagsan insha Allah. kaasa sidaas ayaan u kuuskuusayaa. haddii aan dhaho ilaa intii aan ka dhameynayo waa kuuskuusayaa, videoga ayaa nagu sii dheeraanayo. marka waxaan jeclaystay inaan soo gaabiyo. waa kana, waan soo gaabiyay. markii aan dhameyno waa kaasa, xabadkaas dhexda weynka aan meesha dhiganay waxaa ugu talagalay dhexda saxanka inaan saari doono insha Allah. si qurux badan aan u saari doona. waadna arki doontaan insha Allah markii aan sameynayo. markaasaas intaasoo kuus ayuu noqday iyo xabadkaas dhexda ah.
haddana waxaan soo diyaarsaday saxankii, subag ayaan soo mariyey, baaquligaas yarka dhexda ayaan rabaa calaashan waxaan gelin rabaa burkaas hadhow kale meeshaas cajiinkaas ayaan gelin rabaa. sidaas darteed ayaan meesha u baneystay. haddana waxaan sameynayaa waan fidinayaa, shukulaatada ayaan dhexda ka gelinayaa, kadibna tan ayaan isticmaali doonaa shukulaatada markaa dhexda ka geliyay kadib waa arki doontaan sidii aan usoo diyaariyay insha Allah. waa kaasa yaana war badan idinku dilin, sidaas ayaan fidinayaa. haddana waa kaasa waa arkaysaan insha Allah tabarakallah. harjeynaa inaad ka heli doontaan meel boodinida ka joogtaan. nabad iyo caafimaad ayaa idin rajeynayaa umadeeda qaaliga aan jeclahay. markaasa sidaas ayaan shukulaatada dhexda u geliyay, sidaas ayaan u duubayaa. markii aan dhexda geliyo kadibna waa kaasa sida arkaysaanba sidaas ayaan u duubay. saxanka sidaas ugu soo diyaariyay arkaysaan si fiican ugu jeedaan aan rajeynayaa. dhexdii baaquliga ku jirta bis ayaa diyaar noo ah. haddana waxaan sameynayaa baaquliga meeshaas ayaan ka bixinayaa, waxaan gelinayaa halka qaybtaas ayaan gelinayaa. kuusaska weli qayb ayaa ii hartay laakiin waxaan isticmaali doonaa saxan kale insha Allah. waa kaasa kuuskii qaybtii aan diyaariyay waa kaasa sidaas ayaan u fidinaa. markaa sidaas u fidiyo kadib oo aan dhameeyo ayaan waxaan ku jarjarayaa. qof walba wuxuu haysto ayuu ku jarjari karaa. ani hadda waxaan ku jarayaa shukulaatada furkeeda ayaan rabaa inaan ku jarjaro. shukulaatada furkeeda ayaan ku jarjarayaa. markii aan ku jarjaro sidaas u jarjaro waan soo diyaarsanayaa. kadib sidaa u isticmaali doono waa arki doontaan. ina la sii socda asxaabtay qaaliga. waa kaasa markii aan sidii u jarjaray oo sidii aan u dhadhameeyay waa arkaysaan. qaybahan dhaxdana aan hadda bixinaayana ma tuuri doono, dib ayaan u fidi doonaa. maxaa wax la tuuraayo ma jirto, in lagu dheelana maaha burka. sidaas ayaan dib haddana u fidinayaa. markii aan fidina kadib ayaan saari doonaa. haddana waa ujeedaan qaybtii sidaas ayaan isku soo saarayaa si uu kala korkoreeyo ayaan isku soo saarayaa oo isku aadinayaa. markaa sidaas isku saaro oo sidaas iskugu dhajiyo ayaan shukulaatada dhexda ka marinayaa. wadna arki doontaan insha Allah sida uu noqday quruxda. maasha Allah tabarakallah. aad ayaan uga helay. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan biidmillah. marka waa kaasa markaan sidaas u mariyay oo sidaas u dhameeyaa shukulaatada dhex ka marinaya in la sii socda nala sii daawada oo mahadsantihiin. daawasho wacan oo wanaagsan asxaabtay qaaliga ah. mar walbana hanaga masuugina inaad subscribe-ka noo saartaan, sii share gareysaan, haddii aad ka heshaan like comment-kiga waa xagiina. mar walba waa kama daalno inaad na dhiirigelisaan. waa kana qaybtii kale ayaan fidinayaa sida arkaysaanba. mar walbana waxaan ku taaganaa dhiirigelinteena. kuwa dadkii hore ila joogay mar koowaad iyo mar labaad mar saddexaad ba soo dhawaada. dadka cusub sidoo kale dadka hadda inay nagu soo biiraan rabaane waay sidoo kale ayaan idin soo dhaweyneynaa. mar walbana waxaan idinku soo wada dhaweynayaa qalbi furan insha Allah. niyad saafi ah. waa kaasa sidaas ayaan shukulaatada dhexda ugu gelinayaa. aa ujeedaan shukulaatada markaa sidaa dhexda ugu geliyo kadib waan duubi doonaa insha Allah. ila sii socda. waa kaasa aad u qurux badan yahay. marka waa kaasa asxaabtayda qaaliga. intaas ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago. waa kaasa markii aan dhameeyay haddana waan duubeynaa. waxaan duubayaa sidii rooti camal ama caashi oo kaleeto. waa kaasa wareeg ayaan u duubayaa. kadib wuxuu noqonayaa flower ubax qurux badan kasoo baxaya afka horeeto. labada dhinacba sidii soo noqdo laakiin dhinaca kaleeto kule dhulka ayaa la dhigayaa. uma baahna in la qurxiyo
waa ujeedin baaquliga ayaan meesha ka bixinayaa. Kadib waxaan gelinayaa, ma arkaysaan sidaas ayaan rabaa inuu flower-ki muuqdo. Waan toosinayaa. Hadda meelaha wuu banbanaaya sida ujeedin, laakiin waan daboolayaa. Kadib waa arki doontaan wuu wada buuxsamaya, wuu isla ekaanaya, khamiir ayuu noqonayaa. Waa kaasaa wuu buuxsamay sida idin sheegaba. Kuntii aan haystay iyo sokor yar, qaybta jaalada bis ahayd, wax yar oo caano ah waan isku walaaqaa. Kadibna waan marineynaa si hadhow kale qurux u noqoto. Haddii aad wax rabtid inaad kor aga shubtid xoogaa wuu qabsanayaa, wuu ku dhagayaa. Haddii aad rabtid loosa saaran kartaa oo jajaran, waxaa saaran kartaa qumbe, wixii markaas haysatid. Ana hadda waxaan saari rabaa qumbe ayaan rabaa inaan saaro. Marka waa kaasaa macaankan sidaas ayuu ahaa. Sidaas ayaan ka sameeyay. Sidaasna waxaan ka helay aniga. Idinkan waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan. Waa kaasaa markii aan foornada kasoo baxshay sidaas quruxda badan oo noqday. Waa arkaysaan dhaxda flower maasha Allah, ubax qurux ah kasoo baxay wallaahi. Marka saliid yar waan marinayaa si uu birbiriq u noqdo. Aad ayuu u kulul yahay. Hadda foornada markii ka bixiyo waaye, saliid yar aan kor ka marmariyay. Waa arkaysaan saliida markaa sidaas u marmariyo, waxaan ku shubayaa qumbihii shiidnaa ayaan kor aga firdhinayaa. Markuu kulul yahay ayaa fiican, wuu ku dhagayaa markaa. Qumbihii markaa kor ugu shubo waa arki doontaan insha Allah. Wuu kasii qurux badnaanaa sida uu hadda u qurux badan yahay. Waa kasii fiicnaana maasha Allah. Aad ayuu qurux badan. Indhaha ayaa jeclaanayaba, isha ayaa soo jiidanaysa. Waa kaasaa markii aan sidaas ugu shubay. Waa arkaysaan. Haddana waxaan sameynayaa marada ayaan ku daboolayaa wax yar si ilaa daboolka inuu fiidnaado. Ma fiicno haddii kale wixii uu ka qalalayaa. Wax yar marka ku daboola. Kadib waa kana markii aan soo laabanay wuu qaboobay qurux maasha Allah tabarakallah. Gacanta markaa saartid soft aad ka helaysid. Nafta ku dhehaysa ilmi qurux way jeclaanayaan xaafadda dhan. Marka waa kaasaa sidaas markii aan u soo bixiyay. Waa kaasaa dhaxdiisa sidaas quruxda badan u noqday, softiga ah. Markii aan kala jaray shukulaatadii waa taasaa. Waa arkaysaan dhaxdiisa wax cajiina ma lahan. Aad u qurux badan yahay. Haddana markii waa gadineynaa. Markii aan gadino gadaashiisa waa arkaynaa sida uu noqday. Waa kaastaa muusan gubanin, si qurux badan oo dahabi ayuu noqday gadaasha dambana. Markaas xabteeda qaaliga waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan oo aad dhigi doontaan maasha Allah tabarakallah. Haddana waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada channel-kayga Deeqa Diamond Cooking. Waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.